Axmed Xasan Gaboobe ugaasbile wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya oo maanta warbaahinta qaranka kala hadlay ummadda Soomaaliyeed ayaa sheegay in la gudagalay xilli roobaadkii fatahaadna sameeyay xilligaasi webiga Shabeelle wuxuuna ugu baaqay qeybaha bulshada dawladda hay'adaha samafalka inay ka qayb qaataan xakameynta fatahaadda webiga oo geysta khasaaro hantiyadeed. tabarteenu intay tahay in aan webigaas ka hortagiisa iyo wixii aan qaban karno in aan ka hortagno waan ognahay hadda meelo badan oo uu webigu ka soo baxay walow gobolka Shabeellada Dhexe iyo gudoomiyihiisaba aan aad ugu amaanayo awoodda ka xoog badan oo wax intii ay tabartooda ahayd ka badan ay sameeyaan oo juhdi fara badan ah in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka ah inay muxuu ahaa arrintaas wixii ay ka qaban karaan. wasiirka beeraha oo hadalkiisa sii wato ayaa sheegay inay yaraadeen beerashada khudradda muhiim ku ah bulshada Soomaaliyeed taa oo dhinaca kalena ay badatay beerashada khudradda la dhoofiyo oo dadkii ay xoog saareen waxyaabo la dhoofiyo oo lacag laga helo sida sinsinta leenta khudaar wixii uu dhoofitaan ah idan meesha waxaa ka baxay masagadii galeydii digirtii wixii ummaddu ay ku noolaan lahayd oo quutu daruuriga ahaa beeritaankiisi baa yaraaday markii la yiraahdo wax la dhoofiyo kaliya hal la beerana de qofkii lacag haysta un baa dhoofi marka horena beeraya marka dambana asaga suuq geysanaya idan waxa meesha ku soo dhacay dadkii ummaddu ama dhulkii ay ummaddu ku tiirsanaa jirtay oo wax soo saarka ah maanta inay yihiin qaxooti ku wada jira muxuu ahaa xariyahan qaxootiga ku jira sababtu maxay tahay mar hore beerahoodii iyo waxa lagu dhigay waxaan ayaga raasamaal u ahayn marka taasna dadka beeraleyda ah iyo dadka muxuu ahaa maalqabeenka oo xoolahoodii galiyay sinsin iyo muxuu ahaa iyo liin iyo wax la dhoofiyo galiyay ayagoo sinsinta iyo liintaba intaba loo baahan yahay laakiin wadanku marka uu noloshiisa maareeyo kadib ayuu wax dhoofin. wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaalo ugu jirtay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka dalka waxaana xusid mudan in dalkeena Soomaaliya in uu alle uu ku maneystay dhul beereed hodan ku ah wax soo saarka miraha kala duwan. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.